magaalada Jabuuti caasimadda waddanka Jabuuti roobab mahiigaana oo watay daadad iyo weliba dabaylo oo 24 saac ee la soo dhaafay ka da'ayay ayaa waxay sababeen khasaare lixaad leh. wararka ka imanaya Jabuuti waxay sheegayaan in daadadkaasi ay qaadeen dad iyo weliba gaadiid. sidoo kale muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada waddanka Jabuuti iyo weliba kuwa Faransiiska oo iskaashanaya in ay badbaadinayaan dadka ku go'doonsan amaba daadadku ay godoomiyeen. waxaa lagu soo warramayaa in dad badan ay ku go'doonsan yihiin goobaha ay biyuhu xidheen ee daadadku ay ku fataheen, iyadoo gurmad kala duwan ciidamada waddanka Jabuuti ay sameynayaan ilaa hadda. dadka la soo badbaadiyay ayaa aad u badan, balse waxaa jira sida uu ku soo warramayo wariye jooga magaalada Jabuuti gaari bas oo dad saarnaayeen oo daadadku ay qaadeen. ilaa hadda xukuumadda waddanka Jabuuti si rasmi ah ugama hadal khasaaraha kala duwan ee ka dhashay daadadkaasi iyo weliba roobkaasi dabaylaha wata ee ka da'ay waddanka Jabuuti. meelaha ugu daran ee xaafadaha qaybo ka mid ah ay kala go'een waxaa ka mid ah magaalada caasimadda. sidoo kale gobollo kale oo waddanka Jabuuti ku yaala ayaa roobabku ay saameyn ku yeesheen. 3 maalmood ka hor inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof ayaa ku dhintay roobab sidan oo kale dabaylo watay oo waddankaasi Jabuuti uga da'ay. ilaa haddana ciidamada waddanka Jabuuti ayaa waxay ku dadaalayaan in ay soo badbaadiyaan dadka ku go'doonsan goobaha ay roobabku amaba daadadku ay ku fataheen ee waddankaasi Jabuuti, gaar ahaan agagaarka ama caasimadda waddankaasi ee Jabuuti. wararka ka soo kordha arrintaasi waxaad ku daawan doontaan wararkayga dambe.